kuliyadda sharciga Faculty of Law kuliyadda sharciga ama qaanunka waa mid ka mid ah kuliyadaha ugu tixgelinta badan ee dunida laga daraaseeyo caalami ahaan. qiimaynta kuliyadaha waxaa heerka ee ku jira caafimaadka, injineeriyadda iyo qaanunka. sababtaas darteed ayaa muddada daraasayntooda ugu badan tahay kuliyadaha kale si loo hubiyo shakhsiyaad ka soo baxaysa saddexdan kuliyadood maadaama ay yihiin tiirka iyo udubdhaxaadka bulshooyinka ilbaxa ah. labada kuliyadood ee hore waxaa loo shardiyaa in ardayda ku biiraysa ay haystaan ugu yaraan celcelis 85% imtixaankooda dugsiga sare, balse qaanuunkan waa uu ka duwan yahay. ugu horeyn, ardayga ku biiraya kuliyadda waxa ay maraan sanad diyaarin ah oo loogu baahan yahay in ay ugu yaraan keenaan 80% imtixaanka laga qaadayo dhammaadka diyaarinta. kuliyadan kaliya waxaa ka baaqsan kara sanadkaasi diyaarinta ardayda haysata shahaadada bachelorka ee ka mid ah kuliyadaha artiska sida kuliyadda barbaarinta, culumta bulshada, maamulka iyo dhaqaalaha. sanad diyaarin ah oo lagu daray 4 sano, meelaha qaarna 3 sano iyo bar oo takhasuska ah ayaa qaadata barashada kuliyadda qaanuunka. sidaasi waa nidaam ahaan wadamada hore u maray iyo inta badan dalalka caalamka sida ay ula tacaamulaan kuliyadan iyo ardayda baranaysa. marka aan u nimaano sida ay ka tahay dalkeena Soomaaliya iyo wadamo kale ee dunida saddexaad ka tirsan, ugu horeynba waxa aad u liita fahamka laga haysto kuliyadda iyo sida ay ula tacaamulaan jaamacadaha dalka gudihiisa. waxaa jira jaamacado bixiya takhasuskan, balse waa ay yaryihiin jaamacadaha oofiya dhammaan waxa ay dalbanaysa kuliyadda oo aqoon iyo baraatika leh. qayb jaamacadaha dalka ka mid ah ayaa 3 sano lagu bartaa, intooda badanna 4 sano ayay dhigaan, halka kuwa fakulties ahna ay 5 sano tahay muddada daraasayntooda. sidoo kale waxaa laga helaa iyada oo full time ah, halka jaamacadaha qaar ay bixiyaan part time khamiis iyo jimco ah. baahida loo qabo aqoonta sharciga waa mid aad u sareysa maadaama kuliyadda ay aasaas u tahay dowladnimada, horumarka, xuquuqda iyo waajibaadka, kala dambeynta, amniga iyo cadaalada guud. sidaa darteed ayay u yartahay in ardaydu kasoo qalin jibinaysa takhasuskan uu shaqo heli waayo. barashada kuliyadana waxa ay isugu jirtaa aqoon maskaxeed iyo xirfad uu qofka si madax bannaan ugu shaqaysan karo. shaqooyinka iyo jagooyinka uu qalmo ardayga kasoo qalin jibiya waxaa ka mid ah la taliye sharci, garsoore, abukaate, xeer ilaaliye, cilmi baare, saxafi iyo dhaqdhaqaaqe xuquuqda aadanaha. sidoo kale dhinacyada uu ka howlgeli karo waxaa ka mid ah qaybaha garsoorka, wasaaradda, baarlamaanka, hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah, shirkadaha gaarka loo leeyahay, bangiyada, maamulka, ciidamada, jaamacadaha iyo meelo intaasi ka badan oo lagu xusi karo. nootayooyinka, golayaasha safaaradaha iyo wixii lamid ah. waxyaabaha uu ka dhaxlayo qofka cilmigan barta waxaa ka mid ah inuu marka hore nafsadiisa ku anfaco, uusan u baahnayn sharci yaqaan. sidoo kale qofka inuu ka shaqeeyo meelo bulshada ka tilmaaman oo uu magac iyo maamuus ka heli karo. sidoo kale faa'iidooyinka waxaa ka mid ah inuu qofka barta aqoontani uu noqon doono maskax maal, fakarkiisa uu aad u sareeyo, islamarkaana leh awoodo taxliilin iyo furfuridda arrimaha. ugu dambeyntiina waxaa xusid mudan in qofka in heerka ka gaari karana ka samayn karo shaqooyinka la xiriira takhasuskan. dhanka kale, waxyaabaha taban ee takhasuskani leeyahay waxaa ka mid ah sida ay soo wariyeen ardaydii ka qalin jibisay in dabaqaadiisa ay adag tahay maadaama bulshada ay faham ku filan ka haysan sharciga. sidoo kale qofka haddii uu baratika soo helin xilli waxbarashadiisa oo uu la kulmo caqabado waaqac iyo dhabta nolosha la xiriirta. guntii iyo gabagabadii takhasuskan waa mid aad u heersara oo dadka ka soo qalin jibiya waxa ay noqdaan
injineerada nashqadeeya bulshooyinka qaabeeya nidaamkooda isla markaana horseed u noqda horumarkooda iyo cadaaladda. waxa uuna soo dhaweynayaa arday kasta oo doonis run ah haya inuu ka miro dhalin karo bulshadan cilmigan barashada cilmigan nasiib wacan.